beri waxaan wada ciyaari doonaa xulka qaranka Eswatini kulan ka tirsan isreebka koobka qaaradda Afrika 2023 Ivory Coast, balse maanta wax yar ayaynu ka barano xulka qaranka Eswatini iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cida aanay aqoonin, magacaygu waa Axmed, soo gudbiyaha YouTube-ka. Haddii aad ka heshaan muuqaaladeeda, subscribe noo saara. So let's go. Eswatini oo hore loo oran jiray Swaziland weligeed uma soo gudbin koobka qaaradda Afrika iyo koobka adduunka midnaba. Sidoo kale xulka qaranka Soomaaliya uma soo gudbin koobka qaaradda Afrika iyo koobka adduunka midna. Labada garoon ee lagu kala ciyaari doono home iyo away-ga waxay noqon doonaan Benjamin Makabi oo ku yaala Tanzania iyo Mobile Stadium oo ku yaala South Africa oo ka mid ah garoomada lagu qabtay koobka adduunka 2010. Eswatini qiimeynta FIFA waxay ugu jirtaa kaalinta 145aad, halka Soomaali ahaan aan ugu jirno 194aad. Sidaas awgeed, Eswatini waxay naga sareysaa 48 boos. Xulka qaranka Soomaaliya darajada ugu fiican uu ka gaaray qiimeynta FIFA waxay ahayd sanadka 1996 wuxuuna galay booska 158aad. Sidoo kale xulka qaranka Eswatini qiimeynta ugu fiican wuxuu galay 2017 wuxuuna galay booska 88aad. Qiimeynta ugu xun ee dalka Eswatini waxay ahayd booska 190aad sanadda 2012, halka xulka qaranka Soomaaliya uu ahaa booska 203aad sanadda 2019. Xulka qaranka Eswatini kulankii ugu horeeyay caalami ah ee ciyaareen waxay u baxeen xulka qaranka Malawi waxayna uga adkaadeen 2-0, halka xulka qaranka Soomaaliya uu u baxay dalka Kenya oo laga soo adkaaday 5-1. Guuldarrada ugu fiican ee uu gaaray xulkeena waxay ahayd 5-2 oo uga adkaaday xulka Mauritania, halka xulka qaranka Eswatini uu guuldarrada ugu fiican uu ka gaaray xulka walaalaha aynu nahay ee Djibouti 6-0. Guuldarrada ugu xun ee uu gaaray xulka qaranka Eswatini waxay ahayd 10-0 oo uga adkaatay Masar, halka Soomaaliya oo looga adkaaday 14-1 oo uga adkaatay Waqooyiga Kuuriya. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena. Isleedahay xulka qaranka Soomaaliya wuu badinaa mise waxaad isleedahay waxaa ka mid tahay dadka dhahayo xulka qaranka Soomaaliya ma badinayo? Commentiga noogu soo qora.